weeye dhulkeennii waa la haystaa waxaanu ku kasbanay dhaqaabtaa garan mayno in badan baa la abhiyey in badan baa la yidhi walaalayaalow nadaaya dadkanu hadda dalka in badan bay joogeen magaalada Laascaanoodna hadda waxaan u malaynayaa dhowr casho ka bacdi waxay noqonaysaa 7 sano dhammaanaya aagga ay joogaan ee si rasmi ah u joogaan ee oog ilaa Gambare ee magaalada Laascaanoodna ay ka mid tahay waxay dadka iyo dunyada iyo dhulka laftiisa ku falayana waa ognahay isagoo ka hadlayay in wada hadal dhex mari karo iyaga iyo Soomaaliland ayuu sheegay in ay wada hadal ogol yihiin balse ay sharti tahay marka hore in ay ka baxaan deegaanada ay gacanta ku hayaan ee gobolka Sool sidoo hadalka u dhigay waxaan rajaynaynaa oo ka jecelahay in aqal la isticmaalo in la wada hadlo in nabadda lagu soo dhawaado in wixii dan ay markaa la wada leeyahay hooyaha laga joogo uma soo muuqato magaalada Hargeysa iyo Burco maamulka jooga inkastoo maalmahan aan maqlaynay niman hadlayay oo lahaa wada hadal baan rabnaa wada hadal hadday rabaan ma ibriqba lagu adimayaa wada hadal hadday rabaan meelaha loo maro way yaqaaniin annagu wada hadal diyaar baan u nahay laakiin waxa shardi ah dhulkan inay ka kacaan dhulkan malaha abiya isirtoona uma ay laha ingiriis baana wada xukumi jiray leeyihiin ingiriis annagu heshiis lama aanan gelin gabagabadii madaxweynaha maamulka Khaatumo Professor Galeyd ayaa sheegay in deegaanadaasi ay wajahayaan dagaal daba dheeraada oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Khaatumo haddaan wax laga bedelin nidaamka hadda wax ku socdaan waa sida hadalka uu dhigay innakuna haddaan dadkii dhulka u dhashaynahay dhaxal ugama tegi karno carruurta inamada yaryar dhaxalka ama kuwa iyaku dhalaan dhaxal liidnimo inaan gumeednimo ugama tegi karno mana ogolaanayno hadduusan nin naga hadhaynin ma ogolin kama yeelayno dagaal baanu ka xigaynaa wax kasta ha nagu qaadato ilaahow 10 sano xitaa nagu qaadato dagaal baanu ka xigaynaa bal waa laysmaba gaadhine balaan aragno bal hadhow yeedhin abtiyaalo yeedhin waxaan hadalkayga kaga soo baxayaa aan ku dhammaysanayaa reer xamar lagu xidho waa idiin mahadnaqaynaa